bismillaahi raxmaani raxiim. Halkani waa Wadani TV. waa TV-ga kaliya ee ku sheegi karayo waxa hal sano Soomaaliya ku soo aadan. manihin kuwa cilmi qaybka yaqaan, ilaahay ayay u sugnaatay, laakiin xigmadda waxay ka mid tahay haybadaha ilaahay uu bixiyo. haddaba markaana waxaan fasirnaa ficilka qolada ay ku dhex jirto ama Soomaalida ay ku dhex jirto. taasi ayaana markaasi aan u fasirnaa waxa kaga iman karo ee awaaqib xumo ah. Wadani TV waxyaalaha uu idin sheegay oo dhan waad soo aragteen. maantana waxaan ka dayrinaynaa Puntland oo October intaan la gaarin ka dilaaci doono dagaal iyo xasilooni darro. waxaa laga yaabaa Soomaalidu inay dhinac kale noo arkaan, laakiin annagu ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu ceylka daroor ugu dhigo kuwa ummadda Soomaaliyeed oo dhan anfaco, iyagana anfaca, khayraadkiisana si nabadgelyo ah loo dhammaystirto. taasi waxay ku tusaysaa in aanan ka xumayn, laakiin marka horey ayaan idinkugu caddeeyey oo dhahnay dhibkana haysta haddaan nahay Soomaaliya ma lihin siyaasi. taa ayaana keentay mar walbana maamulada waxaan ka dhiganaa dad aan qabiil ku keenay, waxayna galaan khasaare, dhibaato iyo awaaqib xumo ku ah ummadda iyo dalka Soomaaliyeed. waxaa kusoo fur leh intaan October la gaarin 2012 ama 2012 Somaliland Puntland xasilooni darro iyo dagaal sokeeyo oo ka dilaaco oo Garowe, Qardho ilaa iyo gaaro Boosaaso. waxaana u keenayo waxa weeye shidaalkan ee dilaaciyana hadda aan indhaha idin saarayo ee laga helay saad ku aragtaanba Nugaal oo Daroor Valley ah. waxaana soo saarayo hay-adda African Oil Corporation oo iyadu lacag iska qaadato, wax ka galayna aan jirin. haddaba ceylkani khasaaraha uu ku keenayo waa xasilooni darro iyo dib u baaho. marka hore aan xasuusiyo, caalamka waxaa u yaala shuruuc kambaniyada shidaalka soo saara ah. taa ayay marka hore Puntland ku xadgudubtay. taasina waa aqoon darrada haysato. aan idin leeyahay Soomaalidu siyaasi ma haysato. ceylkani waxaa soo saaray kambaniyada ka mid ah inaan sheego ma doonaye dalalkan quwadaha koowaad iyo labaad ka mid ahi. waxa ay xilligaas soo saareen dowladdii Siyaad Barre, wuxuuna ka mid ahaa 17 ceel 22 ceel ee Soomaaliya afka laga daahay ee alxanka lagu dhijiyey. wuxuu ahaa kan 17aad, kadib waxaa la helay 5 kale oo ka dambeysay. waxaa Soomaaliya ilaahay ku manaystay khayraad dibaaci 22 ceel oo Soomaaliya oo shidaal ah ayaa ku yaal. kan daroor wuxuu ahaa kii 17aad. kambanigii soo saarayna maanta wax uu ka warhayo iyo xaaladda ma jiraan, lagumana xadgudbi karo, shuruuc baana caalamka u tal. kambaniga haddii xataa kambani karo inuu shidaalka soo saaran yahay, marka uu helo shidaalkan kambaniga helay waxaa qasab ku ah in magdhow laga siiyo lacagtiisii inta alla intuu sheeganayo intuu kambaniga kale la wareegin. kambanigaasi si official ee dowladdii Siyaad Barre ayaa kula saxiixatay, saxiixii iyo dokumentigiina uu haystaa. xadgudubka koowaad ay sameeyeen Puntland horta waa taas oo uga awaaqib xumada kaga iman karta iyadoo kaalinta koowaad ah. tan labaad, kama ay fikirin dadkoodana uguma aysan taxadarin dhibaatada kaga iman karto khasaaraha. dalalka carabta ay aragteen 30 sano 40 sano soo jiray sida Liibiya oo kaleeto, quwadda militariga Iraq oo kaleeto, waxaa loo burburiyey, cagta loo mariyey waa shidaal. si lagu dhiibto dadyow aan xisaabtayaam ah oo waxaa la raba laga fushado sida la rabanayo la yeelo. taasi waxaan ku tusaysaa dalalkii 40 sano dowladaha ahaa ayaa shidaal dartii loo burburinayaa. Puntland oo 20 sano dowladda Soomaaliya khadka ay ka baxsan tahay, Etoobiyana halkan kolle iska sii marto, kolle iska soo marto yaa shidaal soo saarayna dadkii inooda dadkiisu laayay, wax naxariis u galay ma jiraan. waayo waxaa lagu soo hubeynayaa dadyo fara badan, iyagoo markaa la qaba qaybiyo waxaa la isku dayayaa maamulka faroole iyo in laga takhaluso, iyagoo kooxo kale oo dhexdooda ah la soo sameyn doono. waxaana soo sameyn doono kambanigii shidaalka hore u lahaa oo ah kan maanta dalalka inaan sheega ma doonayo, dalalka maanta caalamka
waxa markaas ay u dhiibeen iyagoo waxaasoo dhanba la eegin ay hoos qandaraas kala saxiixdeen shirkad australiana. xalay ayay ku dhawaaqday shirkadaasi in caankaasi la butaaciyey oo sheegtay cadadka uu gaaraya iyo wax kasta oo joornalada caalamka oo dhan laga akhristay. taasi ayaa kadibna waxaan filayaa in ay jawaabo ka bixin doonaan dowladda horumaha u maray ee shidaalkaasi soo saaray kowgiisii hore ee xaqa ku lahaa. waxayna sameynayaan inay amni darre iyo xasilooni darre ka sameeyaan kol ay xataa somalilan ay dhahaan dhulkaba sheego oo lagu soo hubeeyo oo saasna ay ku dhacday sidii iraaq iyo kuwait oo kale. amaba waxaa dhici kara iyadana etoobiya oo koox kaleta samaysato oo aan ogeynba xataa shidaalkay leedahay anaba soomaaliya ka dhex talin jiray, kolla xagga usii marto kolla xagga usoo marto. dowlad amni ah maanta soomaaliya ma jiraan oo awood leh oo xasilin karta dalka. taas ayaa ah qalad, siyaasina ma lihin. barnaamijkan oo aada u tafatiran waxaan idiin geli doonaa jimcaha soo socdo, waana ka deyriyey wadani t v. waxaad arki doontaan octoobar oo la gaarin puntland oo xasilooni darre qabsato. mahadsanidin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa wadani t v oo ka xun awaaqib xumada kusoo fur leh shidaalkan la dilaaciyey ee aada aragtaan ee indhihiina aad saaraysaan. waa daroor, waa nugaal. haddaba dowladihii awoodda lahaa 40 sano shidaalkoodii ay haysteen baa gacanta lagala muruujinaya oo laga bixinaya ku banaan cidle ay iska yaalo Ethiopia xaggan u marayso kol inta loo marayo aan aragna wixii ka soo baxo oo natiijo ay waaqif ma mahadsanidin. waxaan idin faahfaahin doonaa jimcaha soo socdo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.